Suuratul Zalzalah waa suuradda 99aad marka loo eego tartiibta suuradaha Qur'aanka Kariimka. Waa suurad Makki ah. Waxay ka kooban tahay suuraddan 8 aayadood, 36 erayadood iyo 156 xuruufood. Suuraddan waxay ka hadlaysaa dhacdooyinka waaweyn ee qiyaamaha iyo calaamadaha saacadda qiyaame. Nala fahan micnaha suuradda. بسم الله الرحمن الرحيم Magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaarba naxariista. إذا زلزلت الأرض زلزالها Goortii la gilgilo dhulka gilgilideeda وأخرجت الأرض أثقالها ay soo saarto dhulkii culeysyadeeda wixii culeys gudaheeda ku jiray ay soo saarto وقال الإنسان ما لها uu yidhaahdo bini'aadamka maxaa u sugnaaday maxaa ku dhacay يومئذ تحدث أخبارها maalinkaasay sheekayni dhulkii warkeedii bay sheegi بأن ربك أوحى لها rabbigaa baa u waxyooday yacnii dhulka amray يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم maalinkaa way soo fulayaan way soo baxayaan dadka iyaga oo kala tagtagsan oo kala duduwan in la tuso daraaddeed camalyaalkood فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ruuxii sameeya dhurcaso wax culeyskeeda la eg oo khayr ah wuu arkayaa ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ruuxuu sameeya dhurcaso wax culeyskeeda la eg oo shar ah wuu arkayaa ugu dambayn daawadaha sharafta leh haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar la wadaag asxaabtaadoo sheer dheh hana ilaawin aad tiktokeena falow soo dhahdo mahadsanid